mar walba uu waqtiga sii socdo cilmi baarayaasha sayniska waxay ogaadaan waxyaabo badan ay mar hore diinteena noo sheegtay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود في مرينكا أما عذرات كل عفيرة. هدي جنالك كعصوبة فضلا سبسكرايب ده سيادنا على سعة مر والبفضلا ريح جنب الألعاب. ما أنتو حكى هذا الدونات تضبفها إذا عافيمات وجيركي نقول لي هسونك mar walba uu waqtiga sii socdo cilmi baarayaasha sayniska waxay ogaadaan waxyaabo badan ay mar hore diinteena noo sheegtay. si uu u noolaado qofka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay energy. si uu energy u helo qofka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay cunno ama inuu cuno cunto. ayadoo ay taas jirto waxaa la ogaaday 24 saac 16 saacadood kamid ah qofka haddii uu soomo oo waxba cunin qofkaas in caafimaadkiisa wax weyn ay iska bedelayaan. sidoo kale qofka waqtigaas uu sooman yahay wuxuu helayaa waqti badan uu kula dagaalamo firaaqo badan uu kula dagaalamo cudurrada jirka ku jiro. maadaama janalkan uu yahay janal looga hadla caafimaad xoogga maanta waxaan saari doonaa ahmiyadda soonka caafimaad ee leedahay. hadduu ilaahay yidhaahdo faa'iidooyinka soonka aad ayay u badan yihiin. waxaan kusoo koobaynaa 7 qodob hadduu ilaahay yidhaahdo. faa'iidada koowaad dheefshiidka oo fiicnaada. enerjiga cuntada laga helo waa glucose inta jirka uu u baahan yahay marka uu isticmaalo. waxa soo haro waxaa laga dhigaa kayd. qaabka loo keediyana waa qaab dufan ah ama faat. waana sababta qofka haddii uu isticmaalo cunno fara badan ay jirkiisa dufanka ugu badanaysa ama baruurta. qofka marka uu sooman yahay wuxuu isticmaalayaa dufanka uu keedsaday. dufankaas uu keedsaday waxaa u bedelaya energy beerka. maadaama dufan badan uu qofkii isticmaalayo waxaa ka dhalanaysa meeshaas in ay yaraato khatar badan oo qofkaas ku dhici lahaa xubno badan oo jirkiisa ka mid ah sida wadnaha iyo xubno badan. sidoo kale waxaa fududaanaysa in unugyada jirka ee duqoobe laga saara jirka lana abuuro unugyo cusub lagu bedelo kuwii duqoobe. faa'iidada labaad ee soonka maskaxda oo siday u shaqaynaysa aad u wanaagsanaata. marka koowaad ee qofka soonka ku cusub yahay waxaa yaraanaya enerjigiisa. sidaas darteed qofka wuxuu dareemayaa daal iyo baahi. haddii uu la qabsado qofka laakiin baahida iyo daalka iyo enerji la'aanta meesha way ka baxaysaa. Professor Mark Matson oo ah bare ka tirsan jaamacadda Hopkins University sidoo kalena ah madaxa Lab of Neuroscience wuxuu cilmi baaris aad u fara badan ka qoray soonka iyo saameynta uu ku leeyahay caafimaadka bini'aadanka. wuxuu ku sheegay cilmi baaristiisa in qofka haddii uu soomo usbuucii 2 jeer ka mid ah in uu ka badbaadayo cudurro badan ee dadka markay waaweynaadaan ku dhaco oo badanaa aad u saameeya neerfaha sida cudurka loo yaqaano Alzheimer's oo lagu yaqaano hilmaamka iyo cudurka kale oo loo yaqaano Parkinson's ee qofka dhaqdhaqaaqa jirkiisa ama murqihiisa ee aad u liidanayaan. weliba aad ka dareemaysid qofka inuu jareynayo aad waxaa loogu arkaa dadka waayeelada ah iyo dadka ka badan 60 sano. sidoo kaleeto wuxuu ku sheegay cilmi baaristiisa Dr. Mark Matson in qofka sooman fahankiisa iyo xasuustiisa fiicnaanayso maadaama unugyo cusub ee xubnaha jirka oo dhan loo soo saarayo kuwii duqoobana laga bixinayo inta uu qofka sooman yahay. faa'iidada saddexaad yareenta kansarka. waxaa cilmi baaris ay sameeyeen Longus lagu sheegay in soonka uu yareeyo unugyada kansarka sida sidoo kale inuu soonka fududeeyo in qofka daawooyinka kansarka loogu talagalay qaadanaya markaas haddii uu soomo ay aad ugu fududaato daawooyinka kansarka inay dilaan kansarkii. waxaa kaloo cilmi baarista lagu sheegay qofka kansarka qaba in seelasha ama unugyada caafimaadka qaba ay u gudbaynin kansarka ay ka badbaadayaan marka uu qofka soomo. faa'iidada afaraad yareenta macaanka ama sokorowga. cilmi baaris lagu sameeyay jasiiradda Okinawa ee ku taala dalka Japan waxaa la helay in dadka ku nool tirada macaanka qabto ay aad u hooseyso. sababtana ay tahay in waqti badan dadkaas ay wax cunin. marka ay wax cunayaanna in ay cunaan cunno aad caafimaadkooda kor ugu qaadayso ee u badan khudaar. waxay ka mid yihiin dadka ku nool jasiiradda Okinawa dadka adduunka ugu cimri dheer oo waxay gaaraan 100 sano iyo ka badan ayagoo caafimaad qaba noloshoodana maareyn kara. waxaa cilmi baaris kale lagu helay in qofka marka uu soomo insuliinka oo ah maadada glucose-ka ama sokorta jirka inuu isticmaalo qaabilsan ay aad u fiicnaanayso taasoo markaas dhalinaysa in natiijo la taaban karo uu qofka dareemo sokortiisana ay normal noqoto. faa'iidada shanaad yareenta cudurrada wadnaha. soonka wuxuu sababaa inuu yareeyo xaaladaha halis gelin karo wadnaha inuu si fiican u shaqeeyo sida bareesharka dhiigga, kolestaroolka
iyo cudurro badan oo soo socda. waxaa la arkay cilmi baaris lagu sameeyey bareesharka dhiigga dadka sooman inuu yahay normal marka ay sooman yihiin, aadna ay farqi ugu dhexeeyo marka kale ay soonneen. haddii uu bareesharka dhiigga uu normal yahay, waxaa fududaanaysa markaas in uu wadnaha culays uusan dareemin, aadna shaqadiisa uu u wato. wuxuu soonka yareeyaa dufanka ama kolestaroolka. haddii kolestaroolka yaraado, waxaa yaraanaya culayska, sidoo kale waxaa yaraanaya in xididadii jirka ay dhiigga siinaya xirmaan, sidoo kaleeta xididada wadnaha inay xirmaan. haddii kolestaroolka uu aad u fara badan yahay, waxaa badanaysa fursadda in qofkan wadnihiisa ay xirxirto. faa'iidada lixaad, waxaa fududaanaysa soo kabashada qofka uu ka soo kabanayo jugta. xubnaha jirka waxay ka kooban yihiin unugyo yaryar. soonka wuxuu sahlayaa in unugyadaas kuwooda duqoobay ama dhaawacmay ama dhib gaaray in lagu beddelo unugyo cusub si ay xubinta si fiican ugu shaqayso. wuxuu marka qofka helayaa sooman isbeddel la dareemi karo iyo isbeddel aan la dareemi karin oo unugyada gudahooda ka dhacaya. sidoo kale waxaa la arkay soomista 3 beri oo xiriir ah inay u fiican tahay qulqulka dhiigga ama habwareegga dhiigga, taasoo sababaysa in xubnaha dhiigga si fiican ay u helaan, sidoo kalena si fiican ay u shaqeeyaan. faa'iidada 7aad, miisaanka jirka oo yaraada. qofka miisaankiisu uu badan yahay, soonka faa'iido weyn ayay u tahay, sababtoo ah waxaa yaraanaya halista caafimaad ee ah inuu qofka ku dhaco macaan, dhiigkar, dufan ama kolestarool, sidoo kale lafa xanuun. wuxuu kaloo ka helayaa qofka miisaanka inuu dhimo, inuu qofka active noqdo, wax badanna uu qaban karo. ugu dambayn, maanta way inoo caddahay mar walbeeto uu wakhtiga sii socdo, cilmi baarayaasha sayniska waxay ogaadaan waxyaabo badan ee mar hore diinteenna noo sheegtay oo aad inoo anfacaya caafimaad ahaan iyo sidoo kaleeto badbaadadeenna. waxaan ognahay nabigeenna sala allahu calayhi wasallam inuu soomi jiray usbuucii 2 jeer, maalinka isniinta ah iyo maalinka khamiista. waxaa kaloo waajib inagu ah qof walbeeto ay kaamil u tahay shuruudaha soonka in sanad walba uu ka soomo bil. sidaas darteed waxaan xoojinayaa maanta laga bilaabo inaan ku dadaalno badinta soonka, maadaama ay faa'iidooyin aad u fara badan ay noo leedahay, sidoo kalena ajir ilaahay agtiisa aan oga helayno. intaas waa talo caafimaad. insha allah waxaan isku dayaynaa in aan soo badino fiidiyoyada aan uga hadlayno dadka waxyaabaha ay samayn karaan si ay caafimaadkooda kor ugu qaadaan ayagoo aanan isticmaalin wax daawo ah, si dabiiciya ee qofkan caafimaadkiisa uu kor ugu qaadi karo. ahmiyad weyn ay noo leedahay qofka caafimaadkiisa asagoo aan waxyaabaha kiimikaaliska ah uusan isticmaalin, sababtoo ah waxaa la arkay qofka marka uu si dabiiciya isku daaweeyo waana ka cimri dheer yahay dadka kale, waana ka caafimaad badan yahay dadka kale. waxaa rajaynayaa maanta waxay ka bilowday in aan aad ugu dadaali doonno, kuna dadaalno wax walba oo na anfacaya markaas inaan sameyno, wax walba khatar ku ah caafimaadkeennana iska ilaalino. wax walba si aad u qabatid waxaa u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay. sidaas darteed waxaan mar walbeeta idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo, kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, qof walbana heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan. insha allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo muhiim ah. wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo qor ama noogu soo dir commentiga si aad mar walba noola socotid. fadlan subscribe saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaal. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa inoo maalin kale iyo fiidiyo kale insha allah.